halkan ku kulmay guddidii xisbigu xil saaray inuu la hadlo ururada kuwii aan soo gudbin iyo kuwa soo gudbayba guddidu uu xil saaran yahay wax kaloo u xil saaranahay siyaasiyiinta madaxa bannaan ciddii tala aan wadaagayno halkan waxaan isugu nimi inaanu ka tashanno sidii qarankan loo badbaadin lahaa qarankan mustaqbalkiisii marka mugdi buu galay sool waxaa ka socda waa arkaysaan taladii dalku halkay maraysa waa arkaysaan markaa waxaan isugu nimi maaha cid nacayb cid ka tashi iyo waxaan isugu nimi sidii qarankan loo badbaadin lahaa waxaanu ku faraxsannahay ururadan soo ajiibay ee nagala qayb galay wada hadalkan ubax oo guddoomiyeedii joogo daljir oo guddoomiyeedii joogo iyo iftin oo guddoomiyeedii joogo iyo galool oo iminkana soo gaadhay muraddiin sidii waxaa loo wada qabsan lahaa ayaanu ka tashannay oon isweydiinnay waa bilow mabda' waanu isla qaadannay in dalkan badbaadadiisa laga wada qayb galo in cududda la mideeyo in caqliga la mideeyo in xoogga la mideeyo waxaa noo dhiman un tafaasiishii iyana way iman doontaa laakiinse fikirka guud waxa weeye war dalkan saynu badbaadinayn aynu isaga nimaadno tiina waa la isla qaatay baytalqasiidku waa kaa waxa kale waa farsamo u iman doonaan ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa arrintaas sool in ilaahay sidii ruum u ka dhigo dadka caqliga leh halkaa joogaa inay dhinac walba ka eegaan dhinac walba aanay ka eegaan oy wixii danta ku jirto tooda iyo teenuba waxay ku jirto inuu ilaahay garansiiyo intaasaanu asalaamu calaykum